dagaalo cusub miyaa ka dhacay tuulooyin hoos yimaada degmada Shilaaba. dhawaan maleeshiya beeleed ayaa weerar ku soo qaaday tuulada Quracshir oo hoos timaada degmada Shilaaba ee gobolka Qorraxay. dhimashada dhowr iyo 10 qofood oo u badan ciidamadii deegaanka ayaa la warinayaa walow ay xero ciidan galeen maleeshiya beeleedku. haddaba ciidamada liyuga deegaanka oo horin hor leh la geeyay aagaga ayaa bilaabay inay baadi goobaan maleeshiyaadkaasi weerarka soo qaaday kuwaasoo aanba ku haleelin goobihii ay ku sugnaayeen ama xilliyadii ay weerarka qaadayeen iyo tuulooyinkii ay weerarka ku soo qaadeen ee ka dhacay aagagaasi. tuulooyinka Quracshir, Fadhigaraadle, Laasacaano iyo tuulooyin badan ayay dadkii shacabka badankood isaga baxeen kuwaasoo ka cabsi qaba in ciidamadu ku xasuuqaan aagagaasi maadaama maleeshiyaadkii weerarka qaaday badankood iyo hubkoodiiba la baxeen isla markaana ka fogaadeen aagaga kuwaasoo la sheegay in markii horeba ay ka soo tallaabeen xadka sida uu sheegay hoggaanka nabadgelyada deegaanka. waana sababta raggii hubka qaadi karay iyo dhalinyaradiiba ay uga baxeen tuulooyinkaasi. waxaana xiriiro kala duwan oo la sameynay tuulooyinkaasi ay noo xaqiijiyeen dadka baaqiga ku ahaa inuusan jirin wax dagaal oo u dhaxeeya ciidamada deegaanka iyo maleeshiya beeleedkii dhawaan weerarka ku soo qaaday tuulada Quracshir iyo tuulooyinka u dhowdhowba. maamulka deegaanka ayaa amar ku bixiyay in ciidamadu si guud u sugaan amniga balse haddii uu yimaado duulaan lagu bartilmaameedsanayo ay isdifaacaan taas beddelkeedana aysan weerarin shacab masaakiin ah oo aan waxba galabsan sida aan xogaha ku helnay. sida la abaabulayo ciidamada deegaanka ayaa lagu riixayaa inay geystaan ficilo aan la mahdin iyo in shaarkii dawladda ay ku xasuuqaan shacab aan waxba galabsan balse maamulka ayaa u muuqda mid ilaa iyo xad iska fogeynaya inuusan hal dhinac ka noqon arrinta sidii dhacday xilliyo horeba. odayaasha dhaqanka beeshii dhawaan weerarka ku qaaday gobolka oo iska fogeysay eedaha ayaa sheegay in shacabka tuulooyinkaasi aysan dhibtu geysan dawladduna kula xisaabtanto maleeshiyaadka ka soo tallaabay xadka mas-uuliyadooduna ay qaadayaan maamulka Galmudug walow iyaguna waa Galmudug ay iska fogeeyeen eedaha ay u jeediyeen odayaasha dhaqan ee Fadhigaraadle. horay way isku dooxi jireen oo dagaal gorile ayay reeruhu isku qaadi jireen balse weli ma dhicin in xero ciidan ay ku dhiiradaan weerarkeeda waana arrin ugub ku noqotay deegaanka. walow tabashooyin laba daraf ay jiraan oo mid ka mid ah beelaha gaar ahaan kuwa gacantii ugu dambeysay geystay ay ku eedeeyeen dawladda in ciidamadii deegaanka la huwiyay shaar qabiil isla markaana dhan ka noqdeen dagaalada ka dhacayay aagaga. dhimashada wiil dhalinyaro ah ayaa la warinayaa oo ciidamadii liyuga ee roondada sameynayay rasaas ku fureen kadib markuu arkay ciidankii ka baxsaday iyagiina ay rasaas ku fureen waxaana ciidamadu ay baadigoobayaan qof kastoo lagu tuhumayo inuu ku lug lahaa weerarka walow ay tuulooyinkaasi badi ka baxeen raggii iyo dhalinyaradii halka meelaha qaarna xitaa ay carruurtii iyo maxastiiba isaga baxeen cabsi soo food saartay aawadeed. dagaalada qabaliga ee ku soo noqnoqday deegaanka ayaa ku soo badanayay sanadihii ugu dambeeyay welina xal waara lagama gaarin dagaalada soo rogaal celiyay ee u dhaxeeya beelaha ood wadaagta ee wada deegaanka Soomaalida.